gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa maanta ka warbixiyay waxqabadka ay dawladda hoose ee Berbera ku tallaabsatay sanadkan gabagabada ah ee 2014 geesta kalena waxa uu ka warbixiyay safarro uu dhawaan ku tagay qaar ka tirsan wadamada Yurub waxaana ka mid ahaa hadaladiisii sidan markii ugu horeysay degmadan ayaa la Public Library-gaasi waxa weeyaan inaanu intaan ugu awoodno horta qabanno laakiin qorshayaashiisu waxa weeyaan inuu la jaan qaado haday tahay gudihiisa wax la dhigay haday tahay bilicdi tahay Public Library-gaas oo buugagtan imika soo raran tahay waxqabadka sanadkeega waxa ku jira qorshaha bilicda magaalada sidii maadaama magaalada xeebeedayadan magaalada Berbera biyaha laba qaybood oo dhigi lahaay wixii magaalada gudaheeda ku daa roobkuna uu caadir bada gal lahaa wixii qasfar badan baan ku bixinay satellite baa lagu cabiray kala sareynta dhulka mashqada laga soo saaray waa la arfateys gareeyay koska ay ku soo qiimeeyeen iyo buuga ay ka sameeyeen waxay ku saleeyeen lacag ilaa 20 milyan gaaraysa iyadoo aanay dawladda hoose aanay ku hamiyi karin ama aanay sheegin karin muddooyinka sanadaha soo socda ay qaban karto laakiin hanka iyo himilada ayaa ka horeeya waxhelista waxaanu u bareernay inaanu adeegsano qalabka iyaga iyo awoodayada iyo waxaan haysano inaanu kula dagaalano phase 1ka oo ah loogu talagalay ilaa 10 milyan oo dollar inay galayaan sidii biyaha daadadka ah ee soo galay magaalada loogala dagaalami lahaa loo xidhi lahaa oo steps la qaybtii ugu horeysay alxamdulillah waxaan aad iyo aad halkan uga mahadcelinayaa maarayaha dekedda iyo maarayaha haamaha oo iyaguna iskala taagay dawladda hoose oo mid adduun ku bixiyay mid qalab ku bixiyaba galay oo aanu qaybtii ugu horeysay mooskii imika uu gabagabay yahay oo ah phase-kii koobaad waxa ka sii badan phase ka dambeeyo ka sii culus yahay phase-ka labaad waa 3 kilomitir 3 kilomitir waxa doonayaan in gaadiid lagu xiro oo ay ka howlgali doonaan ama ku bixi doonaan kasfar badan su'aasha labaad waxa weeyaan safarka labadii jeer baxday marna laba xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka la xiray marna laba xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka lagula dagaalamay xarunta dawladda hoose arrintan ka wada ilaa imika halkan waxaan ka cadeynayaa bulshada noo sheegaya Soomaaliland noo sheegaya caalamka noo sheegaya xildhibaanku wuxuu leeyahay xasaanad waa mamnuuc waa xaraan in la qabto iska daa in la garaacay shaarka la jida xaraana wasaraan dib loo ciyaay ayaa xaraana mid aan raali ka nahayna maaha mid aan aqbal karnana maaha mid aan yeelanina maaha mid aan raali ka nahayna maaha waanu ka xunnahay horena badan waan sheegay aad iyo aad baan uga xunnahay xildhibaanada Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera